dhowr bilood ka hor waxaa duqa magaalada Sheffield ee waqooyiga Ingiriiska loo doortay wiil dhalinyaro Soomaaliya waxaana uu ka soo baxay xisbiga Greenka intii uu xilka hayay waxa uu qaaday tallaabooyin iyo mowqifyo siyaasadeed oo saxaafaddu soo hadal qaatay sida inuu madaxweyne Trump ka mamnuucay inuu soo booqdo magaalada Sheffield dhawaan ayaan maayarka Sheffield ku booqday xafiiskiisa kani waa Majid waana duqa cusub ee Sheffield magaalo ku taala waqooyiga Ingiriiska waxa uu yimid dalka Ingiriiska isagoo 5 jira waxaana isaga iyo qoyskiisuba ka soo qaxeen magaalada Burco. My name is Majid. Waa nin 28 jira waxaana uu noqday duqii magaalada Sheffield ee ugu da'da yaraa waxaana wax ka bedelay durba dhaqankii hore. Lord Mayor Majid waxa uu rajaynayaa inuu mideeyo dad yowga kala duwan ee magaaladan ku nool isagoo dardar cusubna geliyay magaalada. dhawaan maran booqday magaalada Sheffield ayaa haddaba waxaan kula kulmay maayarka cusub ee ka tirsan xisbiga Greenka Mayor Majid. Hey magacaygu waa Majid waxaan ku dhashay Burco anigoo 5 jir baan imay magaaladan Sheffield baan soo koray xaganan wax ku dhigtay iskuulkayga xaganan ku dhigtay jaamacadana waxaan ku dhigtay magaalada Earth Hall ee ku taala East Yorkshire markaasna Sheffield baan ku soo koray markaasna anigoo 4 sanadood ago baan Green Party-ga join gareeyay xisbiga Green Party-ga markaasna alxamdulillah kana Lord Mayor ka noqday. waxaad noqotay imika Lord Mayor-kii ee magaalada Sheffield maxaad rabtaa inaad qabato mar haddii xilkan weyn lagu dhiibay markaas waxaan doonayaa dadka caawiya oo dadka ila degan dadka xaafadeena community-gaana especially waliba area-da ward-ka represent karaya magaala waa ward-ka area-dan ee Broomhill Sharvale Soomaalidu ugu badan yihiin Sheffield ba Soomaalidu aad ugu badan yihiin laakiin markaas waxaan waxay u fiican tahay dadkeena in qof Soomaali ah soo baxo because dadkeenu support garanaya ma igu jirin niyadeeda haddana ku sheegay in Lord Mayor noqdo laakiin qadar Allah oo alxamdulillah siday noqotay alxamdulillah maayarka dad badan waxay u haystaan ama Lord Mayor-ka inuu awood badan leeyahay oo arrimo badan kala wado awoodda xilkan imka lagu magacaabay waa sidee xilkaagu muxuu yahay waxa weeye marka ugu horeysa Park Lord Mayor waxa weeye 2 roles kagu horeeya Lord Mayor waa ambassador-ka magaalada Sheffield Sheffield baan represent karaya locally nationally internationally kalabaadna waxa weeyaan wax jira waxaan yiraahdaa full council meeting dadka councilor-ka doona Sheffield way isku imaadaan once a month bay isku imaadaan and markaas aniga meeting-ka chair karaya meeting-kaasna waxaa decisions-kana sameynaya qof kasta ee Sheffield affect garanaya magaaladan Sheffield ayaa soo dhaweysay maayarkeedii ugu horeeyay oo ah nin dhalashadiisu ay Soomaali iyo British ba tahay waxa ayna ku maamuseen in uu magaaladiisa u shaqeeyo waa duqii magaalada Sheffield laakiinse kama marna inuu kaftamo waana kan Majid oo igala kaftamaya ku hadalka luqadiisa Soomaaliga and my English is like your Somali so okay runta buu sheegayaa 6 out of 10 on a Monday 5.5